10 sano ka hor, sanadu markay ahayd 2016, magaalo yar oo qabow, guri dabaq hoose ah, iyo qoys yaroo iska caadi ah. Wiilkan ka sheekeyna maanta waxaan u bixinaa magaciisa Jacfar. Jacfar ma ahayn wiil buuq badan. Dugsigu wuxuu ahaa mid aamusan, marka qaar xitaa lagu qoslo. Laakiin markuu guriga yimaado, dunidiisoo dhani way isbedeli jirtay. Qol yar iyo laptop yar duuga iyo hal yar oo nal u saaran ayuu dhex fadhin jiray. Inta badan carruurta da'diisa waxay ku mashquulsanaan jireen cayaaro iyo kubado. Jacfar haddaba wuxuu ku mashquulsanaa hal su'aal: sidee ayay dunidu ugu xidhan tahay hal shabakad? Hooyadiis mar walba waxay weydiin jirtay, wiilkaygiiow, maxaa ku haya? Maxaa kaa siya? Shaashadan habeenay dhagaa aad dul fadhido maxaa u sababa? Keliya hal jawaab u siin jiray: hooyo, dunida ayaan ku jiraa. haddii aad rabto qisada dhammaystiran, youtube-keen kusoo daawo, profile link saaran taabo, dan taabo mataqaan youtube-ka. Okay.